السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربا مانتا إنا هالكن كلا هادلو جالية سوماليدا دجن قبل كمان سهرة يجودهان ودنك مريكن كويدل وحان إذن كلا سو هادليا مقالة سان كلاود ومانتا ايس اد اكتيف اوغاهيد اي محل هاي امدا سوماليدا iyo dadyo kale la degan qoliyaha Latina ba u banaadaan ay maanta aad meelahooda u galeen goobaha ganacsiga ay aad u galeen xaafadaha tagayeen aad ay maanta u banaayeen hadaan u soo dhaco Soomaalida maanta waxa inta hadda ognahay waxay qabteen maxaa la yiraahdaa ay maanta la kulmeen laba gabdhood oo Soomaali ah labada gabdhood gabar waxay ahayd oo green card suga ah oo wadanka si sharci ah ku timid ayay ahayd gabarna waxay ahayd gabar citizen ah gabadha citizen ka ahayd cabaar bay haysteen waa qaateen gaari bay ku kaxaysteen gacmaha laga xiray waa la dhibaatiyay aakhirkii laakiin wasi daayeen laakiin gabadha kale maqan qaateen waxay ahayd gabar maartay sharciga I94 ka yiraahdo qaadatay ahayd gabadhaas waa kaxaysteen waxaan kale ognahay in dadyo kale ay maartay kaxaysteen ilaa iyo maalmihiina soo dhaafay oo Soomaaliya marka waxaa jirto saan ognahay barnaamij la yiraahdo Paris oo ah barnaamij loogu talagalay in dib loogu fiiriyo qaxootigii dalkan la soo dajiyay 4 sano u dambeysay laga soo bilaabo bishii labaad 2021kii 21 sanadkii maartay 2021 laga soo bilaabo ilaa dadkii la keenay maxaa yiraahdaa January 2025 waa 4 sano u dambeysay oo madaxweynuhu ahaa dalka ka ahaa Joe Biden uu ka ahaa waay barnaamijkan wuxuu saameynayaa oo loogu talagalay in dib u eegis lagu sameeyo sharcinimada dadka meeshan qaxootinimada ku yimid dalkan ku yimid 4 sano soo dhaafay goolka laga leeyahay waxay tahay in qofka lagu qasbo in interview oo qasab ah in dib loogu celiyo oo lagu fiiriyo maartay sharcigiisa lagu fiirinayo number 2 waxa looga dalanayaa waxay tahay oo kale in qofkan la eego waxay ayagu ku dhahaan assimilation qofkan intee in la eeg ayuu wadanka macnaha la qabsaday ama u dhaxgalay oo kale assimilation waxa la yiraahdo intaas marka la eego kadib depending on the result kulli hal dhinac bay u jeedi doonaan waxa loo dalanayaa marka waxay tahay in dadkaas sharciga laga qaado oo sharcinimadooda maartay la taaminad gareeyo oo la cancel gareeyo kadibna dib loogu celiyo marka barnaamijkaas waxa lagu tagalay wadanka ay fiirinayaan waxay tahay ilaa 200,000 ilaa iyo ku dhawaad 230,000 kale 230,000 oo qof waaye waa 200,000 ilaa 233,000 qiyaasta saxda ah oo saameynaya marka la eego marka gobolka Minnesota laba waxba maartay waan dhihi lahaa waa meesha ay ka bilaabeen barnaamijkan cusub ee ka hirgeliyeen barnaamijkan sanadkii la soo dhaafay 2025 ayaa maartay la keenay miiska la keenay laakiin bishan hadda bilaabatay sanadkan bilaabatay January 2026 ayuu maartay dhaqan galaya waxa laga bilaabayna waa gobolka Minnesota waan ognahay sababta looga bilaabayo gobolka Minnesota Soomaaliya baa joogta Soomaaliya loo leeyahay Minnesota waxa joogto 5,600 oo qof oo barnaamijkan maartay looga la rabo in lagu dhibaateeyo waana bilaabatay hala la socdo marka dardaaran dadka noocaas marka dadkan wadankan yimid xilliga aan sheegnay goortu madaxweyne ah Joe Biden madaxweynuhu ahaa 2021kii bishii labaad ilaa iyo bishan hadda aan ku jirno 22 maartay bisha January 2025 ka lagu jiro dadkii wadanka yimid si sharci ku yimid oo qaxootinimo ku yimid oo wali aan green card ka qaadanin ama green card ka apply gareeyay oo sugaya ama aan apply gareeninba dadkaas dadka la doonayo waay marka walaalayaal waxaan leenahay dadka noocaas ah taxadar dheeraada sameeya waag hore dhibaatada waxay ahayd dadka maartay sharciga sugaayo wadankan si macnaha qaldan ku soo galo kale taa hadda arrinkaas xagga ma joogto arrinkan waa si halaabaysa dadka kaliya ee maanta fiyow ama caadiyaha laga dhigi karo waa dadka sharciga dhalashada wadankan qaatay oo hadda citizenka dadkaas ma xoogaa maartay maanta la leeyahay dad oo badbaado qaba waay intiina kale oo wadankan yimid 4 sano oo madaxweynuhu wadankan ka ahaa Joe Biden I94 ka wata si sharci ah ku yimid qaxootinimo ku yimid laakiin green card ka wali aanan qaadanin oo u maqan yahay dalbaday ama wali aan dalbaninba dadkaas waxaan leeyahay taxadar dheeraada hal la sameeyo haddii ay danta kugu qasbaynin gurigaaga joogto gurigaaga joog meelaha goobaha ayaga u cayiman ee targetka u ah qolyahan ICE targetka u ah ha tagin meelaha Soomaalida waa la og yahay meelaha maartay ay target garanayaan ha tagin goobaha ganacsiga waaweyn oo Soomaalidu badan ay ku badan tahay oo kale yaan la tagin hadda bixisana oo duruufta ay tiraahdo ina baxday ay maartay qasab kugu noqoto kale qoys ha ku raaco qof ha ku raaco saaxiib ha ku raaco mar walba lagu la socdo